رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. kitaabkii riyaad الصاalixiinka ayaan ku dhex jirnaa, khaasatan baabkii towbada. xadiidkii dheeraa ee 3 nin ee duulaankii tabuuka ka hartay iyo qisadoodii ayaa noogu soo dembaysay. nebiga mar allaala markuu khaswadii tabuuka aadahayay maalin khamiisa ayuu baxay. waxaa kaloo naloo tilmaamay inuu rasuulku aad u jeclaa inuu maalinta khamiista baxo. nebiga sala allahu calayhi wasalam safarka ma soo gala ilaa maalin cad oo duxo maahane. markuu magaalada soo galana masaajidkuu ka bilaabi jiray, 2 ragcadoodna wuu ku tukan jiray, kadibna dadkuu la fadhiisan jiray. meeshaasaa noogu soo dembaysay. wa can abi nujayd waa bidammi nuun, nuunta oo la godo, iyo wa fatxi jiim, jiimtoo la kordhigo. nujayd in la yidhaahdo oo nuuntana la godo, jiimkana la fatxiyo oo markaa la kordhigaa la akhriyaa. waa cimraan binu xusayn alkhusaaciy. magaciisu waa cimraan bin xusayn oo reer khusaaci ah radia allaahu canhuma. asaga iyo aabbihiiba ilaahay ha ka raadi noqdee anna imra'atan naag oo min juhaynata, qabiilka reer juhayna u dhalatay, ayaa atat waxay u timid rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam. gabar reer juhayna ah ayaa nebiga u timid sala allahu calayhi wasalam. gabadhaasaa rasuulka u timid, wahiya iyadoo xublaa uuraysan min azina, zina xaggeeda ayay ka uur qabtay. gabadhaa reer juhaynaa markay rasuulka u imaanaysay xaamilay ahayd, waxayna xaamil ka ahayd ee uur zine ah ay markaa lahayd. faqaalad waxay tidhi, yaa rasuula allah, rasuulkii ilaahayow, asabtu waxaan galay oo aan asiibay oo aan sameeyey dembi, xaddan xad gaarsiisan, dembi in layska xada ah ayaan markaa galay. asabtu waxaan asiibay oon galay ama sameeyey xaddan, dembi xad gaarsiisanoo xad in qofka laga oogo ay markaa tahay. ee fa aqimhu oog calaya korkayga, ku samay rasuulkii ilaahayow. waxay ula jeedaa rasuulkii alla waan sinaystay, kaaga sii daran uurna waan leeyahay, kaaga sii daran guurna waan soo maray. xaaladdaas ayay isugu darsantay. rasuulkii allow, shareecada islaamku waxay qabta igu samee oo igu oo korkayga. fadacaa wuxuu u yeedhay nebiyullaahi, nebigii alla sala allahu calayhi wasalama wuxuu u wacay weliyahaa, weligeedii, qofka mas-uulka ka ah ee tawaliya amarkeeda ayuu u wacay. faqaala wuxuu yidhi, fa axsin hagaaji ilayhaa xaggeeda, ha la hagaajiyo gabadhan. fa axsin ilayha macnaha meeshay jiifanayso, raashinkeeda, cunitaankeeda yaan la caayin, waxyaan lagu samaynin, ha la hagaajiyo. fa idaa wadacad markay dhigto ay dhashana, fa'tinii ii keen buu yidhi rasuulka sal alla calayh wasalam. waayo jiniin baa caloosha ku jira, welad zinaba ha ahaadee dembi ma laha. waxaan soomaali ay dhahdo wacad 7 facaad iyo 9 facaad naar ma galo, oo waxaan janno ma galo, oo waxaan waxba ka jirin. sidaa darteed ayuu rasuulku yidhi, hadday dhasho oo ay dhigto canuga caloosha ugu jira, ii keen. fa facala, waa uu sameeyey. weligii wuu kaxeeyey, markay dhashayna waa loo keenay rasuulka. fa amara
wuxuu amray rasuulka bihaa ayada nebiyullaahi nebigii ilaahay bihaa ayadii buu amray waa in lagu adkeeyo dharka hiyaabkeeda iyo dharkeeda in lagu adkeeyo oo lagu xirxiro si fiican dharka loogu guntiyo yuu rasuulku amray fa shuddat waa lagu adkeeyey calayha korkeeda oo markii la rajmiyo oo dhagaxa uu ku sii socdo inaysan marada ka furmin cawradeeduna aysan bannaanka noqon darteed rasuulku wuxuu u amray in hiyaabkii dharka lagu xoojiyo si fiican loogu xiro fa shuddat waa la adkeeyey calayha korkeeda hiyaabuhaa dharkeedii uma kadibna amara wuxuu amray rasuulka bihaa ay birajmiha in la rajmiyo dhagaxa in lagu bilaabo ee dhagax lagu dilo yuu rasuulku amray farujmat waa la rajmiyey uma kadib sallaa wuu ku tukaday calayha korkeeda salaadii janaasada yuu rasuulku ku tukaday sala allahu calayhi wasalam faqaala lahu wuxuu u yidhi rasuulka cumar baa nebiga wuxuu u yidhi mar allaala markuu arkay inuu ku tukanahayo tusalli calayha ma ku tukanaysaa korkeeda yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayo rasuulkii allow ma gabadha ma ku tukanaysaa waqad zannat ayadoo zinaysatay waaba dhilaysataye seed ugu tukanaysaa rasuulkii ilaahayo qaala rasuulku wuxuu yidhi laqad taabat waxay towbo keentay towbatan towbad low qusimat haddii loo qaybin lahaa bayna 70 oo min ahli lmadiina madiine ehelkeeda ah 70 qofood oo dembiilayaal ah oo magaalo deggan madiina magaalo deggan haddii loo qaybin lahaa la wasicathum gaari lahayd dhammaantood ku filnaan lahayday janno ku geli lahaayeen yay keligeed towba keentay gabadhan towbada ay keentay waa towbad 70 munaafiqiin ah ama gaalo ah amase dad ilaah subxaana wa tacaala dembi ka sameeyey dhammaantood hadday hashee towbadeeda keligeed haddii loo qaybin lahaa way wada gaari lahaydee way ku filnaan lahayd wahal wajadta ma heli kartaa cumarow oo ma heshay afdala wax ka fadli badan min an jaadat inay iibsatay binafsihaa nafsadeeda lilaahi caza wajalla ilaahay ay ka gadatay subxaana wa tacaala inay nafteedii bixisay ay ku saqaayootay ay ku juudisay binafsihaa lilaahi caza wajal rawaahu muslim baa xadiid ka wariyey xadiidku muxuu tilmaamayaa towbada qiimaha ay leedahay qofka way tahirtaa wayna nadiifisaa waxyaabaha xadka gaarsiisan qofka marka xadka looga oogo dembiga waa looga tirtiraa sinadu waxay ka mid tahay waxyaabaha xad ka gaarsiisan sidaa darteed bay inantaani iimaankeeda weynaantiisa ayadoon cidna ogaanin intay nebiga u timid yay tiri dembigaasaan galee iga og rasuulkii allah xaraara kulaylka dembiga haaya lama fadhin karto weliba riwaayadaha qaar waxay tilmaamayaan dhowr mar intay timaaduu nebigu celiyaa canuga soo nuuji ilaa markii dambe kibis intay gacanta u soo saartay ay tiri sow uma jeedid inuu ka kaaftoomay hooyo iyo caano iyo naas intaba ay muufo uu cunayo cunuga si aan loo celin bay doonaysay gabadha rasuulka waa ku tukaday sala allahu calayh wasalam waayo towbada ay keentay buu yidhi waa towbo 70 reer madiine ah ay ku geli lahaayeen janno nafteeda inay ka gadatay ay ka iibsatay nafteeda ilaahay subxaana wa tacaala wax ka weyn miyaa la heli karaa wax ka fadli badan ma jira sidaa darteed qofka zaaniga ku dhasha ama canuga walzinaha ah ee aabbaha aan lahayn wax dembi ah ee uu leeyahay ma jira asaga waalidkuusuu qoryo u guraa iyo janna aakhiro marka la tago meel qori laga guro maba jiraba uu u guraa iyo naartuu u sii holciyaa iyo hadduu dhinto iyo waa sheeko dadku ay wataan asagana wax allaala wixii uu sameeyo ama uu galo yaa ilaahay uga qabsan subxaana wa tacaala can ibni cabbaasin radia allaahu canhuma ana rasuula allah rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi low anna libni aadama ibni aadam hadduu u sugnaan lahaa waadiyan tog oo min dahabin dahab ah
axabba wuxuu jeclaanahayaa an yakuuna lahu inay u ahaadaan waadiyaani laba tog inay u ahaan lahaayeen. walan yamla'a ma buuxiyo faahu bani aadamka afkiisa ila turaabu ciid maahe. bani aadam inuu kaa aamusa ma rabtaa muse waxba ku weydiisanuu dhergo afka ciid uga gor. wayatuubu allaahu ilaahayna wuxuu ka towba aqbalaa calaa man taaba qofkii towba keena. muttafaqun calayhi. bani aadamka xirsiga iyo ku dadaalka maalkaa la tilmaamayaa. waayo innahu lixubbi alkhayri lashadiid. insaanka xoolo jacaylka waa ku adag yahay buu dhahay ila subxaana wa tacaala. aadam carruurtiisa low anna liibni aadam ibni aadam hadduu u sugnaan lahaa waa ilmihii aadame waadiyan hal tog oo min dahabin dahab ah. hal tog oo dahaba marka la siiyo axab wuxuu jeclaanayaa ou jeclaysanayaa an yakuuna lahu inay u ahaan lahayeen waadiyaani laba tog. walan yamla'a faahu afkiisana ma buuxiyo ila turaabu ciid maahane. waxaa loola jeedaa baa la yidhi ilaa inta uu ka dhintay qabriga la geliyo ee carrada saa loogu gediyo loogu shubo markaabuu dhargow kaa aamusayaa. wayatuubu allaahu ilaahayna wuxuu ka towba aqbalaa calaa man taaba qofka u soo laabta. muttafaqun calayhi. waa sheekaday soomaalidu dhihi jireen nin faqiir ahaa yaa maalin ilaahay baryay. ilaahayow juuni dahab buu yidhi. juuni dahabaa dig loo soo siiyey. bal muu intuu juuniga dahabkaas saa u cantoobiyo 2 cantoobo uu siiya ninka gaari gacanka wada ama xamaaliga. nin u qaaduu rabaa keligii ma qaadi karo. inta la qaada guriga loo geeyo soo ninka xamaaliga lacag uma baahna. juuni dahabaa loo soo dhigirto haddana gacmaha kortaawir ilaahow lacagta xamaaligana aaway. marka bini aadam sidiisa wuu dhib badan yahay. bini aadam haddii tog dahaba la siiyo waxay u noqonaysaa wuxuu jeclaan lahaa buu dhahay nebiga inay 2 waadi u noqdaan. 2 god inay u noqoto iyo 2 juuni ayuu jeclaanayaa. bal ninkaa juuniga dahabka inta la siiyey maxaa kaga filnaan lahaa? waxaa kaga filnaan lahaa intuu saa u soo cantoobiyo bac ugu shubo, mar labaad u soo qaado bac ugu shubo, mar saddexaad way ka sii badan tahay. markaasuu haddana dib u weydiinayaa sunuudii xamaaliga la siin lahaa. saa darteed buu rasuulku yidhi ibni aadam haddii waadi dahaba la siiyo 2 rabaa. 2 haddii la siiyo 4 buu doonayaa. adoo iska fadhiya oo waxba aan haysan xataa fiiri mar allaale marka intaa lacag lagu siiyo ama laguu soo diro $200 shalay maadan haysan kuma fikirayni. marka laguu soo diro waxaad leedahay alla muxuu afar kaaga soo dhigi waaye, alla muxuu 5 kaaga soo dhigi waaye. ma 2 ma haysatay? aawa alxamdu, aawa alshukru, aaway ilaah subxaana wa tacaala wixii loogu mahad celin lahaa subxaana wa tacaala. marka ibni aadamka aad buu u dhib badan yahay. xoolaha jacaylkoodana wuu ku adag yahay. ma buuxiyo afkiisa ilaa turaab iyo carro maahane. ilaahayna wuxuu ka towba aqbalaa qofkii u soo laabta. muttafaqun calayh. wacan abi hurayra ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi nebigu yadxaku allah ilaahay wuxuu ku qoslaa subxaanahu wa tacaala ilaa rajulayni 2 nin intii ka ah. 2 nin xaggooda ayuu ku qoslahayaa ilaahay. 2 nin ayuu rabbi ku qoslaa oo yaqtulu axaduhuma midkood uu dilahayo alaakhara midka kale. 2 qofoo isdishay oo yadkhulaani haddana isla gelahaya aljannata jannada. allaahu akbar. towbada wanaaggeedaana loo tilmaamayaa. 2 qofood oo intay isdileen haddana jannada ku kulmay. ilaahay wuu ku qoslaa subxaana wa tacaala. sababta say tahay maxaa keeni kara kaa? yuqaatilu waa dagaalamayaa haadaa midkani fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa ayuu ku dagaalamayaa. markii uu dagaalamana fayaqtalu yuqaatilu haada fii sabiili illaahi midkani jid ilaahay ayuu ku dagaalamayaa. fayaqtulu markaasaa la dilayaa. haddii la dila muxuu noqday shahiid. shahiid hadduu noqdayna janno. wayudkhiluhum aljannata carafahaa lahum. jannu ilaahay gelina subxaana wa tacaala. yaa soo haray kaa wuu shahiiday. wuxuu u dagaalamayey inuu janno ilaahay helo subxaana wa tacaala. uma yatuubu allaahu kadibna ilaahay wuxuu ka towba aqbalayaa cala alqaatili kii wax dilay. ilaan marka hore safka gaaladuu ku jiray.
muslimkaasaa lagu sababay uu dilo janno ku helay. asagii maxaa u soo islaamtay la dhihi maayo, wuu islaamayaa, wuu towba keenayaa. ilaahay buu u towba keenay subxaana wa tacaala. cala alqaatili, qaatilka dushiisa ilaahay u towba keenay subxaana wa tacaala. uma kadib yatuubu allaahu, ilaah wuxuu ka towba aqbalayaa markuu towba la yimid kadib cala alqaatili, qaatilkii. fayuslim, wuu islaamayaa marka. laa ilaaha ila allah, kelimada tawxiidkuu ku dhawaaqayaa. hadduu ku dhawaaqana wax allaala wixii dembi ah ee uu sameeyaa laga tirtirayaa. fayushhad, asagana waa shahiidayaa. kadib baa intuu dagaal galo ilaahay subxaana wa tacaala jidkiisii difaaceedii buu aadayaa. booskii shalay walaalkii hadda uu ku jiray oo kaleu gelayaa. asagana waa la dilaa. muttafaqun calayh. labadaasoo janno ku kulmi maayaan. ilaahay baa ku qosla subxaana wa tacaala. yadxaku allah, waxay ka mid tahay waxyaabaha sidooda in loo sugo u habboon. ilaahay baa raalli ka noqda ha la dhaho, ilaahay qosolka ha laga daayo. waxyaabo fara badan oo dad ay dhahaan baa jira. saa darteed rasuulkaa tilmaamay sala allahu calayhi wasalam, ilaahay suu ula jeedaba laysa ka midlihi shay. yadxaku allaahu, ilaahay wuxuu ku qoslaa subxaanahu wa tacaala ilaa rajulayni, laba nin oo yaqtulu uu dilahaya axaduhumaa midkood alaakhara midka kale, oo yadkhulaani aljanna, jannada isla gelaya haddana labadooda. waa laba nin intay isdilaan iyo haddana jannada isla gelahayaan. say ku dhici kartaa? yuqaatilu haada, kan baa dagaalamaya fii sabiili illaahi, ilaahay jidkiisuu ku dagaalamaya. waayo haddii jidka alle aad ku dagaalamaysaa, gaalaad la dagaalamaysaa. kadibna ujeeddadaada waa litakuuna kelimatullahi hiya alculyaa, kelimada ilaahay inay kor noqoto subxaanahu wa tacaala. intaa wixii ka dambeeya waa la dilay kaa jidka ilaahay markuu ku dagaalamay. fayaqtalu, markaa waa la dilayaa asaga, wuu dhintay. markuu dhintay kadib jannadii shuhadaduu helay. kaa shaqa kuma laha asaga dilay. sababtu waxay tahay yaa i dilay iyo see lay dili karaa, see lay cayn karaa? laa, ma jirto. adiga hadaf baad leedahay, hadafkaadaad ku soconaysaa. ujeeddaad leedahay, ujeeddadaad ku soconaysaa. waxbaad raadinaysaa, wixii aad raadinaysaad ku dhaqaaqaysaa. maxaa lay dilay? maxaa gacanta layga gooy? muxuu hebel hebel u dilay? maya, ma jirto. uma yatuubu allaahu, kadib ilaahay wuxuu ka towba aqbalayaa cala alqaatili, qaatilkii wax dilay. waayo lama dhihi kara qof baad dishay ma islaami kartid, waayo markaa gaal buu ahaa. darajo wuxuu ku jiray diinta uu ka soo hor jeeday. kadibna hadda wuu soo islaamay oo fayuslimu, markaa wuu soo islaamay kii wax dilay, wuu islaamayaa. fayustashhadu, wuu shahiida asagana. kadibna waa shahiidayaa oo wuxuu gaarayaa darajadii shuhadada. dagaal kaluu gelayaa asagoo dhanka muslimiinta ka safan. kaasaa lagu dilayaa. yaa u diidaya jannada? waa ma jirto. sow labadooda jannada kuma kulmin marka. muttafaqun calayhi. waxaa in badan lagu tilmaamaa, tusaalena loo soo qaataa xamza iyo waxsh. filinka kartoonka markaad daawanaysaan oo dagaalka uxud, aad bay idin cabsi gelisaa. waxshi mar allaala markuu waranka intuu saa u ruxruxa siday taariikhdu sheegtay, kadibna uu ku dhufto xamzana uu isdhaho tallaabo qaad, uu kari waayo dhulka ku dhaco. mar allaala markuu dhaco waa tahinda intay soo baxda caloosha, intay ka jeexda xamza, beerkiisa intay la soo baxda ama beerkiisay damcda inay markaa cunto. waa naxdin. saa darteed baa qof kastoo annaga naga mid ahoo qisada looga sheekeeyo ama filin ahaan u daawada, wuxuu arkayaa ama uu dareemayaa cadaawo weyn inuu u qaado ninka lagu magacaabo waxshi wuxuu u soo galay dagaalka maxay ahayd? wuxuu u soo galay si loo ixraariyo, loo xoreeyo, xamzana uu u dilo. hadaf kale uu watay ma jiro. waatay hinde intay guubaabisa dadka ay dhahaysay, na shaafi adna isshaafi, caafimaadna sii adna iscaafi. macnaha xamza wuxuu iska socday dumarka agtooda. mar allaala markuu dagaalku saa u socday, dan aan ka lahaa ma jirin buu yidhi. meeshaasaan iska fadhiyey. ninkii haystay ee jubayr ayaa yidhi, haddii aad xamse disho xor baad tahay. xornimadiisu waxay ku xirnayd xamse nebiga adeerkii inuu dilo ninka lagu magacaabo xamza, nebiga adeerkii ah, inuu dilo
sayfullah inuu dilo asadkii libaaxii ilaah subxaana wa tacaala. sidaa darteed mar allaala markaan arkay xarbadii buu la soo baxay. Waxshi wuxuu ahaa nin xabashi ah oo haddana aan weligii shiishmada la gafin. saa intuu u ruxruxay markay ii sugnaatoon ku qancay buu yidhi yaan ku tuuray. wuu ku dhuftay, meel halis ah ayuu weliba uga dhuftay. weligii shiishmo lama gafin. mar allaala markii ninkii noocaas ahaa ka baxay dagaalka, ninkaa markuu dilay far kale ma qaadin, waa soo baxay. wuxuu yimid ama uu soo fadhiistay meel ilaa dagaalku ka dhammaado. waayo sababtuu u soo baxay wax kale ma ahayn, wuxuu u soo baxay ninkaa dilkiisa. kadibna waa tuu xor noqday. ilaahay baa ka towba aqbalay subxaana wa tacaala. waxshi wuxuu islaamay markii fatxu maka ay dhacday. waxshi mar allaala markii nebiga uu soo galay magaalada maka wuu ka cararay. waxshi dhulkaa qaadi waayey ilaa markii dambe uu soo islaamay. ilaahayna subxaana wa tacaala wuu ka aqbalay islaamnimadiisa. rasuulka sala allahu calayh wasalam buu hor yimid. waxshi baan ahay buu dhahay rasuulkii ilaahayo, rajul ayaan ahay ilaahay rumeeyey, maalinta qiyaamana rumeeyey. suu u galay xamsa, wixii oo dhan waa laga tirtiray. wixii oo dhan laa ilaaha ila allah ma sahlana. laa ilaaha ila allah kelimada lagu magacaabo najaad, dadkay badbaadisaa, dadkay korisaa, dadkay dhiiggiisay ilaalisaa, dembiilay dembiga ka tirtirtaa. qof dhibaataysnaabay dhibka ka qaadaa. qof ku xukumnaa dil. waxshi wuxuu ka mid ahaa dadkuu nebigu dilka ku xukumay sal allah calayh wasalam. hinda binti cutba, asaga cikrama ibni abi jahal, taariikhdaas dib u fiiri. waxay ahaayeen dadkii dilka lagu xukumay. dhammaantoodna waa la cafiyey markii dambe. kulli ilaahay subxaana wa tacaala diinkiisay qaateen. intaan seefta lala gaarin bay soo islaameen. hinde intay rasuulka u timid bay tidhi ana hinda binti cutba yaa rasuula allah. niqaabkii intay kor u qaaday, waxaan ahay gabar ilaahay rumaysay, maalinta qiyaamana rumaysay. rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu weyddiiyey xamsa iyo sida ay maalintaa yeeshay, say u gashay. dhegaha intii ka googoysay dhega ka samaysatay walaalayaal. dhagaha intii ay ka goysay sanka, indhaha laga soo bixiyey xamsa radia allahu tacaala canhu, yaa waxay ka dhigatay waxay ku faanto. wixii ay haysatay ee dhegagashi ahaa iyo qoorgashi ahaa iyo faraantii intay bixisay iyo waxshi siisay, waxay ku beddelatay dhegihii xamsa inay dhegadhega ka dhigato. laakiin markii dambe ilaahay baa ka towba aqbalay. maxaa badbaadiyey? laa ilaaha ila allah muxamadun rasuuluullah. xilli waxaana soo martay laa ilaaha ila allah ay dad badbaadin weyso, oo markaad laa ilaaha ila allah xataa dhihi weysa lagu dhaho dheh laa ilaha illa waa lagu dilaa. xaaladaha noocaasaa na soo maray adduunka. ilaahay subxaanahu wa tacaala mar allaala markuu cadaabkan iyo naartan samaynahayey xikmad cajiib badan buu ka lahaa subxaana wa tacaala, waciyaaduna billaah. ilaahay ha naga badbaadiyee wuxuu ula jeeday xikmo aad iyo aad u cajiib badan. war laa ilaaha ila allah dheh waa lagu dilaa. ninna dil buu ku xukunnaa. asadkii libaaxii ilaahay buu saa u galay. laa ilaaha ila allah baad badbaadisay. cikramo waad aragteen walaalayaal. mar allaala markuu cararay ee uu ka orday, markuu nebigu magaalada maka soo galay uu qabsaday, dhulkaa qaadi waayey, dhulkaa deeqi waayey, wuu cararay. dhanka yaman buu aaday. ummu xakam ama ummu xakiim oo naagtiisii ahayd intay ka daba tag intay rasuulka u timid bay tiri rasuulkii allah cikramo wuu kaa cararay ee iska aamin geli. waa naag. rasuulkuna naga leexa ma dhihin sal allahu calayh wasalam. wuu tixgeliyey bacdamay gabar iimaan leh ay tahay. hadalkeeda waa la qadariyey bacdamay gabar ilaahay rumaysay ay tahay. hadalkeeda koraa loo qaaday, waana la daciifiyey iyo xaqiinaana loo diiday iyo dumar dhahaa soo baxay maantoo surwaalo ugu jira oo ujeeddadoodu ay tahay fisqi iyo xumaan keliya inay ku socdaan. waxa ay u qaylinayaan waa macaasi iyo dembi keliya. waa u jeeddaa waa gabar intay nebi moxamed u timid bay ka badbaado dalabtay, kana cafis weyddiisatay, nebigana ka oggolaaday cikramo in la badbaadiyo. intay ka daba orotay uga tagtay baxaar asagoo la gorgortamaya oo raba inuu iska sii baxo. war soo bax bay tiri, inkaar hele, rasuulka waa kaa soo aamin geliyey. intuu u yimid intuu soo socday buu dhahay nebiga, cikrama idin imaan doona oo muhaajir ah, aabbihii ha caynina, waayo qofka dhintoo la caayo qofka nool bay dhibaysaa. waa gaalkii ummadda ugu weynaa, waa abijahal, waa fircoonkii ummadda. ha caynina buu dhahay rasuulka sal allahu calayh wasalam. idan laa ilaaha ila allah kelimada ah
waa kelimad aad iyo aad u qiimo badan. low ay ummaddu si fiican u qabsan lahaayeen, xaqiiqdeeda la siin lahaa, dhibaato badan buu ilaahay naga rafici lahaa subxaana wa tacaala. faman yakfur biالطaaguut wayu'min biاllaah faqad istamsaka biاlcurwati اlwufqaa la nfisaama laha. faqad istamsaka biاlcurwati اlwufqaa la nfisaama lahaa. ma go'ayo buu dhahay ilaah subxaana wa tacaala. daraf xarig ilaahay uu dhinac ka haysataa, xaggee ka go'aa? waa ma jirto. laakiin silligii, xiriirkii, wixii ilaahay subxaana wa tacaala naga dhexeeyey oo dhan waa lagu wada tuntay. dhammaan waa la diiday. salaad ma jirto, soon ma jiro, sake ma jiro, xaj ma jiro, cimro ma jirto, run ma jirto, ribo ka tegid ma jirto, khayr ma jiro. intaas ayadoo ay jirto yaa ilaahay subxaana wa tacaala waxaa nagu habsaday ciqaabkii uu yidhi walanudiiqannahum min alcadaabi aladnaa duuna alcadaabi alakbari lacallahum yarjicuun. wacan abi hurayra ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal, wuxuu yidhi nebiga, yadxaku allah, ilaahay wuxuu ku qoslaa subxaanahu wa tacaala. nasahnaaye oo sarreeye ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaa rajulayni, laba nin intii ka ah, yaqtulu uu dilahaya axaduhumaa midkood alaakhara midka kale, oo kaaga sii daran yadkhulaani aljannata, jannada isla gelahayaan. way isdileen, janna iskula jiraan. xamse waa shahiid, ninkii dilayna waa shahiid kale. mar allaala markuu saa waxshi uu u yimid, uu rasuulka hortiisa u yimid sala allahu calayh wasalam, weer ma awoodi kartaa inaad wejigaaga iga leexiso? maalintaa wixii ka dambeeyey buu dhahay, markay saxaabadu nebigu hortiisa fadhiyaan, gadaalaan ka fadhiisan jiray. indhaha ma ku buuxin karin, waayo nebiga mar allaala markii xamse saa la yeelay, 70 baan uga aari doonaa buu yidhi. wain caaqabtum facaaqibuu bimili maa cuuqibtum bih walain sabartum, haddaad sabirtaanna sabirkaa idinkaga fiican. waxshigii saas ahaa ayaa ilaahay ka towba aqbalay subxaana wa tacaala. dadka ahlu macaasida ow ha quusanina, naagaha xijaabka ka tegay surwaalka qaatay ha quusanina, kuwa 24 saac kalaabkii khamrada ku jirow ha quusanina, kuwa ilaahay u sharig yeelow ha quusanina, kuwii xumaanta galayow ha quusanina. ina allaha yakfiru dunuuba jamiican, ilaahay dhammaan wuu dhaafaa subxaana wa tacaala. saacaddan laga bilaabo haddaad iska dhaafto wixii xumaan ah ee aad ku jirtay, wanaagna aad u soo rujuucdo, ilaahay subxaana wa tacaala wuu noo dhaafayaa. waad u jeeddaa waxshi hadduu janno galay, naxariista ilaah ballaarnaanteeda. nebiga wallaahi waa awoodi waaye inuu fiiriyo, gadaalan ka fadhiisanay buu dhahay ilaa nebiga dhintay sala allahu calayh wasalam. kadibna mar allaala markii la aaday dagaalkii riddada xilligii abibakar, wallaahi baan ahay buu yidhi, maantaan kafaara gudanayaa. ninka lagu magacaabo musaylam alkadaab inuu asaga dilay ayaa taariikhdu tilmaantaa. hadday run noqotay, xaqiiq noqotona, ummadda ninka ugu khayrka badan baan dilay buu yidhi, kan ugu sharta badanna waan dilay. waxshi radia allahu tacaala canhu, asaga iyo xamsaba jannaday markaa ku kulmayaan. yadxaku allaahu, ilaahay wuxuu ku qoslayaa subxaanahu wa tacaala ilaa rajulayni, laba nin oo yaqtulu dilahaya axaduhumaa midkood alaakhara midka kale, oo yadkhulaani aljanna, labaduba ay jannada gelahayaan. say ku dhacday? yuqaatilu, waa dagaalamayaa haadaa midkani fii sabiili illaah, ilaahay jidkiisuu ku dagaalamayaa. fayaqtalu, waa la dilaa, oo jidkii alluu ku dhintay waa shahiid. uma kadib yatuubu allaahu, ilaa wuxuu ka towba aqbalayaa cala alqaatili, kii wax dilay dushiisa. markuu ka towba aqbalana fayuslim, wuu islaamayaa. fayustashhadu, asagana waa la dilayaa, wuu shahiidi. markaasuu jannada ilaahay gelayaa. muttafaqun calayhi. baabkii labaadna meeshaasuu noogu dhammaaday ee towbada ah. waxaynu gelaynaa baab lagu magacaabo baabu asabr. kitaabka imaamku si cajiib badan buu u qoray. kow waxaan ka soo bilownay ikhlaas, waxaan samaynayno, camalkaan qabanayno, iyo towbada iyo sabarka aan samaynayno, alla dartii inaan ula jeedno. waa kow. markaan ikhlaas ogaano, haddana dunuub baa naga dhacdaye inaan isnadiifino, rabbigeenna hoostiisa tagno, gacmaha haatisano, indhaha biyo laga qubo, qalbiga laga jareeyo, kadibna xumaantii la galay ilaahay la istikfaar weydiisto subxaana wa tacaala. kadib waxaa kuu bilaabanaysa marxalad cusub oo jadiid ah. sabir baa lagaaga baahan yahay. baabu sabr. wabilaahi towfiiq, wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam.